بسم الله الرحمن الرحيم ومركز لي برنامج كيني قري برواقه أما البيت سعيد موضوع كسب سنة سياد حاسكا وكسبان كرتا حلقة دي كوبادتي لواد بقى قضبين وكسورني ولي هذا قضبادي عن إسلاحنا دي للسمايو ولا جاري كراسو أشهد شباب تيدا سياد كسبان كرتا حاسكا أي نكوش له بالقضب كوباد واحد فرابدي سا أمان حاسكا إن الله يابتو aqoonteeda dharkeeda quruxdeeda oo aad ku dhiiri geliso ku amaanto farxad u muujiso waxa lagu maahmaaho la yiraahdaa haweeneyda waxa maxbuus ay u noqotaa ama gidigeedaba saytarayo la wareega al-kalimatu jamila kelmada wanaagsan baa laga yaabaa xaaskaaga inay wax weyn u soo kordhiso cid walbaana kelmada wanaagsan ma tiraahday qof wanaagsan bay kelmada wanaagsanna ay ka soo fushaa isku day in aad xaaskaaga amaanto oo qoodho in aad amaanto wanaageeda sheegto oo aad ka qarin wixii wanaagsan ee indhaha ku arkaan dhagaha ku maqlaan sankaaga uriyo carabkaaga u dhameeyo inta samayso gogashay ku diyaariso guriga qaabka u maamusho qaabka ubadka u daryeesho ha kala bakhaylin waad mahadsan tahay xaaskaaga qaaliga ahayd xabiibi waad mahadsan tahay qalbigayga waad mahadsan tahay ha kala bakhaylin sababtoo wax ka weyn ay labadiina mid ka dhaxeeyo qalbiga baad ku hananaysa kelmadaasi qodobka labaad hadii mar uun qalbigaaga madiinigaaga ku soo degdegto dhaqan aan fiicnayn oo xaaskaaga ka aragtay ama aad kala kulantay mar walba waxaad ku baqtiisa dhaqan fara badan oo wanaagsan oo ay leedahay xaaskaaga taasi waxay keeni doontaa in muaamalada radul ficliga ka imanaya feedback ka imanaya oo noqdo mar walba mid xagga positive ka ama xagga wanaagsan ah oo aan ahayn mid salbiya ama negative ah marka mar walba xasuusno hadii xaaskaagu maalin ay ku xumaysay inay 99 jeer oo kalena ay ku wanaajisay boqolaal kale wanaagin ay leedahay sida adigu baarad macsuum ahayn ee diintaas xumaanada u leedahay ee wanaagaaga faraha badan ee leedahay lagugu qarinayo leeyahay hebel intaas wanaagsan buu leeyahay xaaskaagana saas oo kale u dhaqan qodobka saddexaad hadii mar uun ay ka dhacday هذا حن أما كلمة أن مناسب هين أما فعل أن مناسب هين أو حاسك وكلك علي واحد أدق دكتا أو أدخستا سيد أونا تشيل هيد وإصلاحين هيد واللي بقى وفر صادة اعتذارك أما إنه قفك عذر دار بحيا ما شيء سهل ناد عذر دار بحسه أسلوب كستا وأرين تاسي كان سنة ينات أمرته وشريعته وقشة أرين النوع عسنا واحد المامسة شجاعة هذا geesinimadaada iyo sida aqligaagu u yahay mid dhameystiran oo taam ah qodobka afraad ee kamida qodobadan islaanay waa lagu soo jiidanay xaaska qodobkan wuxuu ku saabsan yahay raga safar badan leh ama xaasaskooga ka maqan hadii aad safarto ama aad ka fogaato xaaskaaga waxaad ku dadaashaa inaad kula soo xiriiro fariimo qalbi taabad ama qalbiga la hadlaya oo kala gacal iyo jacayl tilmaamaya telefoon kula soo hadal xiriirka alxaaskaaga mar walba la yeelanaysa ha noqdo mid maxay ah mid farabadan ama tilmaamaya inaad u xiistay inaad la joogto la kulanto aragta xaaskaagi oo kala fogaanshahaas inuu dhibtiina ku yahay inuu yahay kala fogaansheed kala fogaateen almacna ha noqon qof safray xiriirkii yaray ama jaray xaaskaaga mar walba la soo xiriir qodobka shanaad waxaad xaaskaaga u khasistaa u gaar yeeshaa waqti aad la qaadato oo aad isweedarsataan wixii xoojinayay kalgacalka ama jacaylka dhixdiina ah idinku abuuraya luqadii aad ku fahmi lahaydeen luqadda tafaahum ee warkiina iyo sheekadiina isku dubdhici lahayd idinku markaasi dareemaya amaan xasilooni iyo raaxo mar walbana ku dadaalaya inaad barnaamijyo talxiisa ama waqtiga wada qaadanaysaan ama guriga ka baxsaan ama guriga dhexdiisa aad ku sameysanaysaan aad dejisanasaan inaasina ku soo gabagabeynana waxaan leeyahay in ragow walaagay fara badan baa agtaada yaala marna ka qatanaan wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam wa billahi tawfiq